بسم الله محكمة درجة كواد عيدمada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja 27 jir ah ina Jamiilo Cali Maxamuud ku dhashay Xamar kaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo dacweeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyo inuu dilay marxuumad Baxsanay Cabdulla Boolay dilkaas oo ka dhacay degmada Boondheere gobolka Banaadir taariikh 6 bishii 3 2019 maxkamaddu waxay u jeedisay si waafaqsan habraaca dacwadaha eeda loo haystay eedeysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur wuxuuna ku jawaabay ma gelin dood dheer kadib maxkamaddu markii ay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida markii ay maxkamaddu dhageysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda oo ka hor cadeyn waayay in eedeysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur uu galay eeda loo jeediyay markii ay dhageysatay maxkamaddu gabagabada qareenada difaacayay eedeysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur oo ahayd in xurriyadiisa loo celiyo markii ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka dooda u dhaxaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in Maxamed Cabdiwahaab Nuur uusan gelin eeda lagu soo oogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga degdeg looga sii daayo haddii aan loo haysan dambi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan maxkamaddu waxay amraysaa hay-adaha ammaanka in ay dabagal iyo baaris kala sameeyaan soona qabtaan dembi falihii rasmiga ahaa ee dilay marxuumad Baxsanay Cabdulla Boolay isla markaana ay hor keenaan cadaaladda si loo qaado tilaab ku habboon oo sharciga waafaqsan